Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Wiil agoon ah waxaa soo tarbiyey hooyadiis oo barbaarisay ilaa uu ka baxay jaamacad, wuxuuna helay shaqo dadka dhan ay farta ku taagaan. Markii uu doonay inuu guursado, hooyadiis ayaa kula talisay inuu guursado gabar diin leh, dhaqankeeduna wanaagsan yahay, si ay ugu kaalmayso cabsida Alle iyo siduu jannada ku geli lahaa. Laakiin wiilka wuxuu ahaa mid aad u jeclaaday gabar saaxiibtiisa ayna isku jaamacad ahaayeen, kana soo jeedo qoys taajiriin ah. Waxay ahayd mid qurux badan, laakiin kuma aysan dhaqmaynin diinta. Hoos ahaan ayuu iskula hadlay, wuxuuna yidhi waan awoodaa inaan bedelo, aan ka dhigo mid ku dadaasho salaada, akhrisana qur-aanka, camalkeeduna uu ahaado mid Rabbi raaligeliyo. Hawsha bilowgeeda gabadha ma aysan aqbalin inay la noolaato wiilka hooyadiis oo way diiday, laakiin ahalkeeda ayaa ku yidhi wiilka wuxuu hayaa shaqo muhiim ah, hooyadiisa waxaa laga yaabaa inay dhimato sanad mise 2 sano ka bacdi. Way ogolaatay gabadha. Markay ka soo baxday bishii malabka, maalinkeedii ugu horreeyey ay la kulantay eedadeed si ay wax iskula cunaan, waa ay caruurtay gabadha, waxayna ka istaagtay cuntada, waxayna gashay qolkeeda. Wiilka markii cuntada uu la cunay hooyadiis ayuu aaday gabadha si uu u ogaado sababta ay uga tagtay cuntada. Waxay ku tiri gacmaha hooyada way wasakhaysan yihiin, waxayna inacsiisay cuntada. Hadda kadib hooyada weel gooni ah ugu gur cuntada si ay keligeed u cunto, maxaa yeelay maanta laga bilaabo aniga iyo hooyada hal xeero wax kuma wada cunayno. Inta ay nala joogto waxaan dareemayaa ciriiri. Wuxuu yidhi asagoo isdejinayo, sidaad ogtahay hooyaday ma haysato cid aan aniga ahayn, waana qof waayeel ah, waxayna u baahan tahay kaalmeen. Waxay ku tiri u kaxay daarta waayeelada, haddii kale waxaan aadayaa guriga reerkayga. Wuxuu ku yidhi waa fikir fiican, laakiin aabbaha ayaa isoo wacay inta cuntada aan la cunayay hooyaday, wuxuuna igu yidhi beri guriga iigu imaada adinka dhan, ee sababta maxay kula tahay? Waxay tiri markii aan xeerada ka istaagay ayaan wacay, sababtana beri ayaad ogaan doontaa, haddana waan seexanayaa. Wiilka wuxuu u laabtay hooyadiis, waxayna ku tiri hooyo maxaa jiro? Gabadha maxay cuntada uga tagtay? miyay xanuunsanaysaa? Hadday xanuunsan tahay waxaan u keenayaa dhakhtar. Xaaraam waaye inay seexato iyadoo gaajaysan haddana xanuunsan. Wuxuu yidhi hooyo way nasanaysaa, in yar ka bacdina way cuntaynaysaa. beri waxaan kuu wadayaa meel ay wax walba isku beddeli doonaan, laakiin waxaan kaa doonayaa inaadan iga hor imaanin, aadna igu canaananin waxa aan samaynayo. Waxay tiri maamada kuguma adkaynayo inaad ii sharaxdo waxa jiro, maxaa yeelay waxaan ogahay inaad samaynayso daa'iman wax raaligeliyo Alle. Maalintii xigtay waxay aadeen wiilka hooyadiis iyo xaaskiisa reerka gabadha, waxaana la keenay xeero cunto ah. Kadib gabadha aabaheed ayaa si gooni ah ula baxay wiilka qabo gabadha, wuxuuna u sheegay in gabadhu ka murugaysan tahay la joogitaanka hooyadiis, xaqna ay u leedahay inay si gooni ah kuwala noolaato. Wuxuuna ku handaday inaysan gabadha raacaynin hadduusan u yeelin waxay ka doonayso. Wiilka wuu dhola cadeeyey, wuxuuna aaday xeerada cuntada. Wuxuu ka waayay meesha hooyadiis, ma uusan arkin hooyadiisa, wuxuuna ogaaday in xaaskiisu hooyadiis ku siisay cuntada jikada si ay ula cuntayso shaqaalaha. Kadib ayuu fiiriyey ehelka gabadha ayagoo ku mashquulsan cuntada, wuxuuna si caro leh u yidhi ma awoodo inaan wax idinla cuno, maxaa yeelay gacmihiinnu way wasakhaysan yihiin sida qulubtiinnuba u wasakhaysan tahay. Waxaad iigu wacdeen inaan buriyo hooyaday oo igu soo dhibtootay, wax badanna iga soo martay si ay ii barbaariso iina tarbiyeyso. alla maxaa tihiin qoys qaab daran, sharaf iima ahan inaan xidid idinla sii ahaado. Kadib ayuu u dhawaaqay hooyadiis, waa ay soo baxday iyadoon ogeyn waxa jiro. waa uu raacay asagoo ilmaynayo. wuxuu ka dhunkaday madaxa iyo kafka, sidoo kale wuxuu ka dhunkaday cagaha. hab ayuu siiyey, wuuna xambaaray, wuxuuna ku yidhi inakeen hooyo, raalli ahaanshaaga ayaan rabaa inaan jannada ku galo. fadlan haddaa qisadan ka heshay like saar, nagu soo biir oo Bishaar Action subscribe saar. 1 qof iyo 2 qof asxaabtaada ka mid ahna ku soo xir oo ku soo dar, aad ayaad u mahadsan tahay.